Shirka iskaashiga maamul goboleedyada dalka oo ku socda magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland iyo ku hadalay faragelinta dowladda federaalk Soomaaliya iyo ka hayta doorashada madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed iyadoo 17 November magaalada Baydhabo ku dhigi doonta doorashada madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed hatana magaalada iyo ka sugan musharaxiin badan oo iyo ka jaran dad miisaaniyad culus ku jara siyaasadda dalka Soomaaliya dowladda federaalk Soomaaliya ayaa la ka eedeeyay faragelinta iyo kuwada doorashadantii iyo kumidata anti wasiir ku tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo handartii magaalada Baydhabo iyaguna ujeedo iyo eta qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Sheekh Xasan afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka waana wasiirka dastuurka Koonfur Galbeed iyo warbaahintan sharaxi walyaabo ilan ku hadalay faragelinta dowladda federaalk Soomaaliya iyo ka hayta doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed intii madashu socotay dowladdu waxyaabo badan ay u xisaameysay sida dhibaatada ay ka sameysay galmudug oo ku saabsan inay burburiso sida awalba hore ay u go'aansatay inay baabi'iso maamul goboleedyada dhibaatada ay waxaad arkaysaan sidoo kale warqad ay soo saartay shalay oo wasaaradda arrimaha gudaha la leeyahay ayaa soo saartay oo ay uga hadlayso doorashooyinka ay sheegayso waa inay doorasho xilliga dhacdaa Puntland waa inay 8 January ahaataa Koonfur Galbeed Puntland shan doorasho ka dhacday dowladihii ayada ka horreeyay iyo ayadana waxba lagama weydiin sida loogu talagalay baynu dhacaysa haddii la yiraahdo maaha kuma cusub doorasho ka dhacdo uma baahna Muqdisho in laga soo yeeriyo xilliga dhacaysa sidoo kale Koonfur Galbeed doorashada labaad la galaya haddii la yiraahdo 17 November ummadda iyo dowladda halka joogtana ayaga walba mandate-ka ay haystaan dastuurka qortana waxa ku qoreeda 4 sano kasta in doorasho la galo marka u yeerin madaxda Muqdisho ama dowladda Muqdisho ama lagu joojinayo ama lagu aqbalayo ma doorashooyinka sida loogu talagalay u soconayaan ayagu may waqtiyaan ayagu may sameyn ayaga siyaasadda ku soo biiray marka waxaan leenahay waxa leedin egmaday oo qaranka leedin ku talagalay inuu qabtaan qabta waxaad ogtiin laba maalin ka hor waxay ka suubiyaan cadaado oo lacagta qaranka iyo canshuurta dadka laga qaaday iyadoo lagu suubinaa dhibaatada lagu burburinayo maamulka galmudug sidoo kale shalay Baydhabo waxay geeyeen baabuurta loo yaqaano bullet proof-ka iyo ciidamo ilaa iyo kontameeyo ah oo xamar laga soo daabulay maantana kuwa kale ay ku sii wadaan inay geyso dowladda federaalka waxaad ogtiin bishan horanteedii qaraxa ka dhacay dad badan ku leeday dhaawac halkaas ka dhacay dhibaatada uu geystay qaraxaas ayaa weli taala isbitaalada ku dayacan oo dhaqaatiirta Baydhabo joogto wax ka qaban karin boqol warqadood loo qoray oo dhaawacaas la qaado ah ilaa ay hadda waxay ka soo jawaabto malaha in dadka ku baaba'ay qaraxaas la geeyo halka ay shalka soo daabulayso baaburan xabado karin iyo ciidamo hor leh ciidamada waxaan ka codsanay oo doctor heshiiska ugu dambeeyay agreement Baydhabo la yiraahdo waxa ku jirta wadada Muqdisho in la furo iyo xamar oo saxiixaan madaxda sare dowladdu waxba lagama qaban halkii loogu talagalay inay dalka u shaqeyso amniga iyo siyaasadda iyo inay hogaamiso laga rabay waxay qaadatay dowladda federaalka ee Muqdisho fadhida go'aan ah inay wixii ka horreeyay burburiso laakiin ma burburayaan waxa ka horreeyay institution bay ku dhisan yihiin waxaana mar haddii institution dhisan yihiin sharcigooda iyo waxay leeyihiin dadka iska loo baahilaashanay aniga ku hadlayo magaca golaha waxaan ugu baaqaa dowladda federaalka haddii aanay wax soo kordhinayn inay ka dayso burburinta ay ku hayso maamul goboleedyada iyo siyaasadda waddanka guud ahaanba shan cisho ka hor wax xusuusantaan madaxweynuhu shir golo wasiiro shir gudoominaya waxa looga hadlay oo sheegay in la marinayo nidaamka axsaabta golaha wasiirada soo asagu shir gudoominaya nidaamka axsaabta haddii la marinayo golaha wasiiro waa in wax laga tashado waa xisbiyada maaha xisbiya Muqdisho degan waddanka inay xukumaan looguma talagelin all country ayaa waddanka siyaasaddiisa iyo dadkiisu loogu talagalay in lagu maamulo marka xisbi ay ansaxsatay dowladda dhexe oo madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu isu jiibiyaan Soomaaliya ma xukumayo nidaamka axsaabta sharci uu leeyahay qaab loo maro leeyahay artikelada Suuriya jiro loo marayo sidoo kale waxaa jirta siyaasad loo dhan yahay siyaasad la yiraahdo oo lagu heshiiyey oo siyaasadda loo dhan yahay la yiraahdo guddiyo loo saaray oo madaxdu ay go'aamiso dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe wixii siyaasadda halkaas lagu go'aamiyaa amnigana halkaas lagu go'aamiyaa sida laga yeelayo tanina wixii keenay in hakadka ku yimaado wada shaqeynta waxa kamid ahaa in dowladdu wixii la saxiixday oo lagu heshiiyey hore loogu heshiiyey ay completely cagsigood isticmaasho
haddii lagu heshiiyeyna shabaab lala diriro waddooyinka la furo in iyadu shabaabka hubka loogu talagalay qaranka iyadu ay siiso. haddii lagu heshiiyey in waddanka siyaasaddiisa hoos loo dejiyo oo dastuurka la geeyo tuulooyinka iyo degmooyinka dadka jooga la geeyo, wuxuu dhaafi lahayaa xamar iyo inuu iska noqdo mashruuc iyadu ay ogta ay isku daydo in iyadu dastuur waddanka u samayso. marka wax shaqeynaya maaha. communikeyga dabcan iyo ahdaafta shirkan loo qabtay way soo bixi doontaa. waxay soo hadal qaaday shalay warqadda la leeyahay arrimaha gudaha ka soo baxday oo dhahaysa gogashii madaxweynuhu waa fidsanta. waa ka xumahay brotocoolku ilaa heerka uu ka qaldan yahay. arrimaha gudaha xafiiska madaxweynaha uma hadli karto. haddii gogol madaxweynuhu fidiyey oo laga hadlaayo waa madaxweynaha unbaa kasii hadli karaya, xafiiskiisa kasii hadli karta. laakiin waxay ku tusaysaa junior siyaasadeed heerka uu taagan yahay inay yidhahdaan gogol madaxweynuhu fidiyey ayaa taal ay wasaaradda guduhu tiraahdo. marka dib u heshiisiinta iyo khilaafka jira dhammayntiisana aqalka sare ayaa wax u yimaaday isteedyadoo dhan 5 maamul goboleed ay tageen aqalka sare. wixii ay qabeen isteedyadu amba dowlad goboleedyadu ay la tahay qaranka siyaasaddiisa in lagu maamulo, wixii keenay khilaafka iyadoo qoraalaha loo dhiibay aqalka sare, waxaana loogaga dambeeyaa ama laga sugayaa jawaabta kama dambeysta ee ka soo baxda aqalka sare. annagoo og dowladda dhexe inaanayba aqoonsaneen aqalka sare iyo jiritaankiisa, ayagoo hadafka uu yahay guud ahaan federaalka oo dhanbe inay aqoonsaneen oo sistemka federaalka ay kala dagaalamayaan muqdisho. laakiin waa riyoonayaane waddankani dowlad dhexe qofka jiran iyo qofka service dowladeed u baahan muqdisho loo aado. soomaalidu waa ka gudubtay 2004 baa waddanku system federaal qaatay ku heshiiyey. ummadda Soomaaliyeedna federal system ayay ku heshiisay inay ku dhaqanto. marka waxaan leeyahay dastuurka ah wax ku tihiin oo madaxweyne ku tahay mudane madaxweyne ra'iisul wasaare akhriya asagaasaad u dhaarateen dalkana wax uu qabo ku maamula. haddii aad diidaanna hadda waxaan dastuurayn cidna xaq uguma lehidin idinku caddeecdo. waa mahadsantihiin. waxaa jira dowladda federaalka waxaa sheegtay in ay gaari maaragtay diyaarad ay ku geysay Baydhabo oo musharax ay wado. musharaxiin kale ayaa hore u tagay. marka arrintani ma loo arki karaa in dowladdu meelo badan ay maaragtay dhibaato ka wado? dowladda kiiska Baydhabo iyadoo musharaxiintana ma aqoonsana, dowladda hadda jirtana ma aqoonsanayo. waxay aqoonsan tahay sida nin ay iyadu rabto oo wareegtay ku magacaawdo inay geyso sidii cadaado u geysay. laakiin waa ka xumahay siday u fikirayso si shaqeynaysa maaha. koonfur galbeed institution ay leedahay, aqal baarlamaan jiro madaxweyne dooranaya. shalay ugu dambaysa waxaa la ansixiyey oo baarlamaanku ansixiyey guddiga doorashadii. hadday baawraan xabadi karin keento iyo hadday baasada canshuurta dadka laga qaado masaakiinta bajaajilada xamar laga qaado ay keentana doorasho lagu tartamaya Baydhabo ka dhacaysa September insha Allah November 17 haddii ilaahay yiraahdo waxna kama bedelayso. waa qalad. baawr kale ma ciidan bay keentay nidaam xataa u muuqda inay isku dayayso in rabsha dhacdo maalinta doorashada oo ciidamada ka amar qaata ay rabsho sameeyaan. laakiin ayadan insha Allah hay'adaha amniga aan leenahay baa u diyaarsan haddii la yiraahdo wixii. hadalka afhayeenka ka beegmay xilli magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayshalay iyo ku degdii diyaarad iyo wedi baabuurtahan habadan karaan xanas oo u soo wadayay musharax ku tirsan musharaxiinta teegan qobdow kiilka madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed. isrigeeka magaalada Baydhabo yana hadeeri musharax yeelanka talagalay baabuurtaas intiisu ka socdo kaas oo iyo magaalada bulshada qaybo iyo shalgadiisan iyo suwin handhawaayeen. Faysal Maxamed Isaaq, telefishinka dowladda koonfur galbeed, magaalada Baydhabo.